السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مالين وعنو ونكسن بل إلا دقيست حديث كالنبي صلى الله عليه وسلم نبي أن صوبنها صلوات ربي وسلامه عليه وحاويري حديث حسن كأهي إمام الترمذي ورينيو من حديث علي رضي الله عنه ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له نبي صلى الله عليه وسلم وحاويري مجر قف دنبي قلع deetana kaca oo dahaarad qaata qaabka uu u dahaarad qaadanayana wanaajiya kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiista ilaa ilaahay wuu u dembi dhaafaa kadib ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam akhriyey aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إلهي سبحانه وتعالى وحويلي كوا فاحشة إيا ذنبك سمية أم بنفتو ذا ظلمية كدبنا إلهي سبحانه وتعالى حصوستا ودبديدنا الدنب داف إلهي ويديستا إلهي سبحانه وتعالى دنبك وذا يدافيا yaa kale oo dembiga dhaafa oo aan allah ahayn subxaanahu wa tacaala laakiin shardi baa lagu xidhay oo qofku inaanu dembigii kusii adkaysan oo kusii madax adaygin oo dembigii sii wadin ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubteenna ha dhaafo walaalayaal waxa kaa xiga dembiga kaa dhacay inaad kacdid oo weesaysatid oo si wacan u weesaysatid oo dabadeedna ilaahay astaqfirullaha alcadiim aad tidhaahdid weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubteenna iyo dunuubta waalidkeenba ha dhaafo وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.